dhamaystirka dib u eegista dastuurka ku-meel gaarka ee dalka waxa uu ka mid yahay qorshayaasha ugu muhiimsan ee lagu gaarayo hiigsiga doorashooyinka 2020 shirweynaha qaranka ee qorshe hawleedka dib u eegista dastuurka ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. shirkan oo socon doona muddo 3 maalin ah ayaa waxaa ka qayb galay kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha golaha shacabka, ra'iisul wasaaraha xukuumadda, gudoomiyaha aqalka sare, gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliya Mahad Cabdulla Cawad, xubno ka tirsan golayaasha dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed. wasiirka arrimaha dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuus Jibriil oo shirka furitaankiisa ka hadlay ayaa ka warbixiyay heerarka uu soo maray dib u eegista dastuurka. waxaan soo dhamaystirnay 2012 markaas anaa wasiirka ahaa, laakiin waxaan soo dhamaystirnay dastuur qabi ah oo waxyaalo badan ka maqan yihiin. sanadii la soo dhaafay waxaa jiray dhaliilo badan oo dhahaya dastuurka mugdiyada ku jira laga saaro, hala dhamaystiro koow waxyaalaha technicalka ama waxyaalaha isku imaanaya. dhaliilo kaloo jira waxay looga imaanayaan maamul goboleedyada oo dhahayeen waa in la helaa siyaasad degan oo ah sheegaysa sidii loo qaybsan lahaa awoodaha iyo khayraadka iyo sidii loo dhisi lahaa cagii uu ku istaagi lahaa federationka. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa xusay in dhamaystirka dib u eegista dastuurka qaranka ay keenayso in dalkan uu gaaro deganaansho siyaasadeed oo khilaaf la'aan ah, isla markaana xukuumadda federaalka Soomaaliya ay bixinayso $3 milyan oo loogu talagalay in lagu dhamaystiro dib u eegista dastuurka. waana dhamaystirnaa dastuurka si aan dalka u gaarsiinaa doorasho qof iyo cod ah, taasoo macnaheedu tahay in shacabka Soomaaliyeed ay u codeeyaan cidda ay rabaan inay madax noqoto, in cadda la xisaabtamayso mustaqbalka madaxda Soomaaliyeed ay tahay shacabka Soomaaliyeed. dastuurka waa in la dhammaystiraa si hay'adaha dawladda ay ugu kala qaxnaato shaqooyinka ay leeyihiin oo aanay isugu khaldamin. dastuurka waa in la dhammaystiraa si aan u oogno sarreynta sharciga. dastuurka waa in la dhammaystiraa si aan u adkayno midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. dastuurka waa in la dhammaystiraa si ay u kala caddaato awoodaha xukuumadda iyo labada aqal. tusaale ahaan, dastuurka waa in la dhammaystiraa si isqabqabsiga loogu beddelaa xasilooni siyaasadeed. dastuurka waa in la dhammaystiraa si loo kobciyo dhaqaalaha dalka. dastuurka waa in la dhammaystiraa si aan dib ugu yeelgaleelno qarannimada dalkeenna, una diyaarinno jiilasha naga dambeeya inay naga guddoomaan Soomaaliyada ay xaq u lahaayeen. waxaan halkan markaa ka caddaynayaa xukuumaddaydu waxay ku ballan qaaday inaan bixin doono $3 milyan oo loogu talagalay dastuurka. waxaan hortiina ka ballan qaadayaa inaan bixin doono si loogu dhammaystiro. gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdulaahi ayaa sheegay in dhamaystirka dastuurku uu keenayo horumar dawladnimo, in dalkeenu uu gaaro gacan ay ka geysan doonaan aqalka sare sidii loo dhamaystiri lahaa dastuurka. dastuur loo dhan yahay waa saldhigga dib u dhiska dawladnimo ee dalkeena. dastuur federaala waa in si cad loogu qeexaa dhammaan arrimaha aasaasiga u ah dhisidda dawladnimada iyo hirgelinta nidaamka federaalka. kusimaha madaxweynaha dalka ahna gudoomiyaha golaha shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo shirka furay ayaa tilmaamay dhamaystirka dastuurku uu yahay mid u taala dhammaan ummadda Soomaaliyeed, shacab iyo dawladba. dhammaanteena waxaana saaran dib u soo celinta karaamada iyo sharafka shacabka Soomaaliyeed uu ku lahaa bulshada caalamka. waa mas'uuliyad annaga oo dhan wada saaran. dhamaystirka dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka waa mas'uuliyad annaga si gaar ah noo saaran. waa marka aan aaminno inaan dhaqaale ahaan iyo cilmi ahaan aan isku filannahay. dib u eegista dastuurka qaranka ayaa ka mid ah qorshayaasha waaweyn ee dowladda Soomaaliya si loo helo dastuur rasmi ah oo ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed kuna yimid rabitaankooda. shirkana waxa uu qayb ka yahay barnaamijyada waaweyn ee dowladda Soomaaliya qorshaysay in loo maro. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.